asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada barnaamijkeena somnomics sheeko kastoo dembi ah waxay ku bilaabataa hal wicitaan oo naxdin ah waxayse ku dhammaataa cadaalad maxkamadeed ha yeeshee kiiska maanta waa kiis cadaaladiisa aansan weli helin waa kiis ka dhacay stateka utah waana kiis iskugu jira dil khiyaano iyo filimwa waa kiiskii matthew johnson iyo jennifer gladhill haynoo bilaabata sheekada waana qiso ku saabsan arrin ka dhacday utah oo ku saabsan nin unitis ninkan waa national guardku ka shaqeeya ayadana waxay ahayd hooyadii guriga oo ilmihii wax bay haysteen guri $1 million ay degnaayeen nolosha dadkan way u kala kacsaneed ba dhibaatadii u dhacda waxaa waaye qofka nabadda ma xijin karo dhibaato nabad kastaad aragto dhibaataa ka dambayso familkan waxaa dhacday markay July ahayd dadka kale asxaabta iyo markii inoo dadkooda ay dhex tagaan nolosha caadi ay u kala kacsaneen wax dhibaato maysan lahayn laakiin gudaha wax baa qasanaa so tusaale August markay ahayd waxaa waaye maxkamadda ay waxay dhahdeen ninkan protection order haliga siiyo inuu iisoo dhawaado oo marriyo inuu iga fogaado naftiidan kala baqaya ayadan cadeem ay keysantay dhinaciisana cadeema laga keenay cadeynta marka judge-ka markuu dhageystay wuxuu ogaaday isku si inay umurmayeen oo muranka labadaba ay ka sinaayeen qaylida iyo dagaalka iyo dhibaatada waxaa kale uu ogaaday kii markuu akhriyay text message wuxuu ogaaday inay ninka bahdilaysay oo niyad jabinaysay marka judge wuxuu dhaw meesha waxba kuma haysiin labadiba waa ka simantihiin umana u arkin naftaada ay dhibaato ku jirto la laawaxan qoftan kiisku ay la laabatay laakiin qof dan la moogtahay ma nisto arrin kale u qorshineed marka September 19 markay ahayd waa 2 maalin ka hor markii inta ninka la cunin waxay dejisay inay sii ku dili lahayd marka meesha waa meesha mucjisada naagtan iyadoo la qabay qaraabanaysay ninay la socotay so qoriyay soo gadatay planki dhanay soo dejisay saaxiibkeeda ay tusto xayrad ninkan alaabtaan ku dil rabaaba ninkii waa marka wax weyn u qaadanin waa ka dhageystay caadi uu iskaga soo qaatay September marka 20 markay ahayd galabkii ilmihii hooyadeedii aabadeed gees waxay dhahday ihaya camal ay maanta guriga jooga ila moogtahay ilmaha inay waxaan maqlaan ma rabto and then stage xitaa waxay u diyaarisay inuu ninka sheekada fahmay rabtaa markuu imaaday text message-yadii u arkay waa qayliyey markaa ninkan waa qayliyey wuxuu dhaha waa igu jidgalaysa camal buuqu kiciyey waa la isla murmay then waa la seexday ninkan waa laga hadashiinayay qiilaa loo samaynaya markii la seexday subaxii intuu soo kicin madaxa laga tugtay oo ku yacday markay madaxa ka toogatay gawaarida ma aragtay alaab waxaa jirta lagu qaato baketiya oo alaab lagu qaataa jirto kii ay jirkiisana ku riday gaarigiisii meel neighborhood ay geysay isaga dhan way soo dhigtay gaariga ay halkaa ka soo tagtay meedkiisana way qaadatay way soo dugtay 21 ahayd markay arrinkaas samaynayso 22 habeenkii ku xigay ahaa boyfriendkeeda aadaba waa baashaalkeeda iska bilaabatay so waxay uga sheekeynaysa inay ninkii soo cuntay warniyo ninkii waa wuxuu yidhahdeen maanta waa soo haasa isaga dhan dhac haye marka gacanteeda wuxuu ku arkay jaraxay wax maxaa xagishadani waxaan maxaa waaye markaan duugaya ay dhahday rafaadkan ka maro waaye maba ahanba kama qasno qoftan inay wax soo dishay iyo inay arrin soo bisaba lamahan bas ninkii waa cabsaday marka wuxuu dhahay qof yahay daasaa lagugu samayn lahaa ka war caadi waa dhahday ninba daana godobka galaa liicun maxaa kale ninkaan lafiisa u baqay markay ka tagto wuxuu bilaabay inuu record garaya markay soo hadlado codkii inuu joogo dhigtay text message-keedii uu dhigtay cadeem aruurisuu galo asaga dhan detective yar meel ka noqday bas marka 22 ahayd moogtahay 24ka gurigii dhiigii wax buu ahaa iska dhaqday alaabihii kuwii jooradii waxyaaladii way tuurtay alaab cusub ay Amazon ka dalbatay jooradii waxa waaba degtay wanaagtan kama qasno maalintay boyfriendkeeda u sheegaysa 22ga 6 bari kadib ay askarta wacday waxay dhahday war ninkeygii waa safar aan aada ugu dhahay 6 bari ilaa haddana ma hayay ahna isoo bixin u dhahay bal ka war doona laakiin national guardka ayaa arrinkan asxaabtiisa way ka warhayeen oo meesha ka shaqeynayeen ayaga national guardka ciidanka ka mid ahaa intuusan la dilinne guriga ma soo seexan jirin facility u dhex seexan jiray ninka meeshaasuu guri ka dhigtay waayo wuxuu dhahay guriga became so toxic like nolosha uma fiicna marka asiga asxaabtiisana inay saxiib isku dhow yihiin wuxuu go'aan ku gaaru ninka u sheegay inuu gurigan in la kala tago mooyaane isla joog dambe ma laha marka ninkan asaabi ka tegi rabay inday u dul qaadan lahayd xoogaa yar marka maalintii ay dishay maalintii 2 maalin ku xigtay maalintii saddexaad dilkiisa kadib ayaga already way ninka raadiskiisa galeen waxba ma loo sheegin oo national guardka ninka way raadinayeen waa la waayay ninka askarti way raadisay askarta marka iyadina may ka shakin oo qofkiisa ka maqanyay ka soo qaadeen warranty waxba ma loo doonan inuu guriga lagu fiirin lahaa dhac doonahooday ka raacdeen waa la raadi meedkiisa lama helin bas waa laga tagay waxay sameeyeen marka waxay waceen intii la raadinayay dhan boyfriendka September arrinkan dhacay October 2 oo askarta waceen wuxuu dhahay qofka meesha ka raadinaysa nigama jire ayadaa ninka cuntay cadeemihii uu doono u dhiibo wuxuu dhahay ninka halkaas ku maqan yahay bas way arkeen cadeemadii iyada marka soo xiray waxaa la adiga dambiilihii adiga waa iyadii la soo xiray markii iyada la soo xiray ninkii marka weli waa la raadinayo intaasay xiran tahay ayada waxay waraan waxba ma samayn
marka boyfriendka hadalkiisa inuu sax yahay ini kale waxaa lagu ogaaday markay warrantiga soo qaateen telefoonkeeda ay ka qaadeen deetaga maaragta telefoonada dadka ku sheegaya meeshuu joogo waxay u tusay meeshii gaarigii lasoo dhigay ninka iska lahaa uu geeye wuxuu kala geeyey meeshuu boyfriendka dhaaway kusoo dugtay ninkana uu geeyey so labadaa meelba telefoonkeeda waa laga helay dheerigeeda inay meesha ay joogtay badda ay ku tuurtay baketkii oo flow garaynaya badda laga dhaxelay webiga laga dhaxelay dhiigii ninkii ayaa ku yaalo la dilay so laakiin exactly ninkii meeshuu ku duugan yahay weli lama helin bas iyadii waalidkeeda loo tagay war arrinkan camal wax ma ka ogtiin war anaga waxay dhahdeen waxba kama ogno gurigeeda daqiiqada baan joogna hal saac wax ka yar ayaan joogna waana kasoo tagnay marka naagta inay musiibadeeda dad badan galaafan doonto waxaad ku ogaanaysaa markii dheeda iyo wax la aruurinaya ay noqoto telefoonkii wixii layska qaaday ayaa gurigii waalidkeedii soo seexanaysay kaana waa la baanaa la dheh waxaa la ogaaday qorigii ninkii lagu dilay guriga waalidkeeda laga helay ayada guriga waalidkeeda qoray ka seexanaysa marka meesha qoriga laga soo helay waalidkeeda waxaa la ogaaday markii la fiiriyey kaameradii waxyaaladii 5 saacadood inay guriga gabadhooda la joogeen markii ninka la dilay kadib waxaa la idin kale waxaa dembiga waad ku jirtiin oo ayakii waa la indhayd gelay dowladda ay kala dambi ay sartay ayadii ninkeediiba wuxuu uga tagay imagine 500 oo kun handaan dhinto ayada hala siiya la dhahay inay daqiiqeyn iska gelis kiiskii marka waa qasmay iyada 5 count oo maxkamada ayaa lagu xukumay dembigeeda lagu qaaday weli lama maxkamadda may korin hooyadeedii aabeeda 67 jir iyo 71 jir ayay kani geesay maxkamadda laga saaraya familkii ilmihii aabala-aan ayay dhigtay marka maxkamadeeda waxay ahayd December 2025 marka waxay dhahdeen maxkamadda waxay ka codsatay war hey maadaama arrinku saan yahay at least fasaxa baan dhisiya boyfriendka wuxuu dhanay hadii waxay dhahdeen hadii aan liisi daa intaan jeel galaa siyaacina prosecutor waxay dhahdeen qofta way isdiileen hadii la fasaxo ama danger waxay ku tahay community-ga judge-ka prosecutor-ku kula agree garay jeelka dhex fadhida hadda kiiskeeda marka wuxuu noqon doonaa December 22 horta 2025 December dib baa loo dhigay March miyaa laga dhigay June laga dhigay June judge-ki maxaa kiis kale oo asagana Mario oo asagana inuu koro oo asaga maxaa la jiray ninkii wadi lahaa uu yahay ayadana June marka waxaa la labada kiis isku wadi karo keedii hadana waxaa loo dibdhigay December 2026 laakiin waa kiis la rajeynaya inuu 6 bil socdo cadeemadaasna waa cadeemada iyada laga haayo marka kiiskan waa kiis asaga dhanba meelo badan twist ka laha oo dhibaatadiisa badnaa halkan waxaa ku eg sheekadii Matthew Johnson iyo Jennifer Gleedhill adinka maxay idinla tahay ma waxaad isleedahay dembiga way gashay mase weli maysan gelin mase maxkamadda markii la saaro defense lawyerkeeda waxay la imaani doonaan markaan aragnay ayaad isleedahay xukunkaaga waqtigaas ayuu noqon doonaa oo sheeko kasta oo laba dhinac ay leedahay